once again. asxaabta quruxda badan oo reer jawaar official walaasheena dhibaatadan ku dhacday iyo khiyaanadan oo xaajigeeda iyo gabadha kaalmeyn isku samaysay kulay idinkana waxaa ka dhihi lahaydeen commentiga ugu reeba fiidiyoga dhammaysta bilow ilaa dhammaad commentigana waa xaggiina waxaa kula soo tali lahaydeen waa xaggeeda inkastoo tiri ayada iima macaanaya dhahda mana rabo walaa nin kale aan u soconin raagsan waxaa baayanaha loo soo duceeyo inuu ilaahay qalbigeeda u qaboojiyo oo ubadkeedana ilaah ula koriyo hadday ninkeeda calaf dambe isku leeyihiin allah isu celiyo hadday calaf isu heenna ilaah qalbigeeda u qaboojiyo idinka xaggiina waaye ducada iyo la taliskaba insha allah abaaye lasoo taliya una soo duceeya ilaah qalbigeeda inuu u qaboojiyo dhammaantiin waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها قروح بدن قيمها بدن وايدين سلامي مال والبعد ذوك جوكتان إيغوار عفو الرحمن إن شاء الله إلهي هذين حفظه إلهي هذين بركايو مال والبعد ذوك جوكتان كوارا بشبش برواقو هذا نوع سبتاي سودو سبسكرايب لايك كومنت وحقاقا هذا هو جوكتان هي منكا وملغوط الماما يهوشادا وانا محسن تهي سلام مرة والبقرب كي وتاجنتين وحيد الله جزاكم الله خير إلهي ذي حفظه إلهي ذي بركاته ولا لها قيمة بدنا وجعلها إلهي درتيسا وانا ذي جعلها وحيد الله هاي وحتهين ولا لهيجا وقلبي وكجران وانا ما سنتهين أصحابتي ذي قروح بدن يفهم البهدين نقطة وحيد الله هاي وما سنتهين ما دعنتين اللي جمدالو واي وحتهين دتك كتاجنا هاي مرة والبدتك مرة والبندير قلياتهين وانا ما سنتهين مال بجوكتانا إلهي هدينكو حفظه إلهي هدينكو أمان صد إن شاء الله عاوي بلا شيء محيدين ودا عاوي هاي إيه شاكو إيه قصة شاكي قصة هالكلمانو وحانو لسو ذاكتي إيه قبر صوماليات أيانو لسو ذاكتي وحيد هذا باي معان إيه مدو أو حيس جعلان ويل قصة جعلك أني كله قصتو way ugu culus tahay way waxyaabo aan qaban karin jiraan oo qaarna ii keenayo qalbi xanuun oo qaarna ii keenayo murugo waayo ma jecli murugta aniga murug dhan ma jecli ilaahay amarkiisa ilaahayna qof walba dabeecado u dhaliyay waayo murugta dhan way dhibtaa waxa jeclahay happy liska hal adduunyadana happy ma yaslax mana anfacay maano waayo qof haduu inta ka toosan intuu ka qaluucay haduu inta ka faraxsan intuu سبحان الله ما وحملها ابن عادنا نهاي كامل ارتاحبه هدو إلهي تنسي أنا كان أركين ما هنو مركا ولا شيء عتري مدة أو حكو جري أو حاسجعلان ويل مركو حدر سيدا اسكو جعلان هذا ويلك إلهي وحون سكيدري علف الحمد لله وإسقو سدين بواب جعلنا هذا ما شاء الله وحدري إلهي وحون سكيدري علف وحان سلسعوني قصة إذن كسو نحكي شيكو wiilkii waxaan isla soconay dhahday dhowr bilood 8 bilood meelaha saytay dhahday ilaa 7 bilood isla soconay alxamdulillaah waan isguursanay ma sha Allah tabarakallah wax badan isla joognay ilaahay wuxuu nagu arsaaqay 4 ciyaal ma sha Allah 4 ciyaal way ii joogaan dhahday ilaa sanaanta single mother waaye waxay dhahday waxa ila joogtay dhahday gabar oo kaalmo gacan yaro amba hadba u shaqeyso maxaa la ma sha Allah tabarakallah waxay tiri nolosheeday tiri waxa galay nolol janna jannatul adduunya galay dhahda alxamdulillah ilaahay mahadiis waa maana ma sha Allah marka waxay waajiceelkii guuleysto noqday dhibaato badan haday dhan famil noqoto haday dhan dirmo wax walba noqoto way ka soo guuleysteen oo waxay noqdeen dadkii najaxay oo isguursaday oo hadana ilaahayna ubad ku sii arsaaqay oo hadana muddo badan isla joogan ma sha Allah yaaba heli karo marka waxay dhahdaa baayo marka waxay dhahdaa daada labaad daada koowaad qof ii kaalmeys ilama joogin daada labaad oo odaygayna ma sha Allah oo ilaahayna gacantiisa wax soo geliyay imaha karnin wuxuu ii keenay gabar kaalmeyso gabadhii kaalmeyso ii keenay dhahday ma sha Allah labada ood kala hadana dhalay ma sha Allah labadeeda ood barwaaqo iyo waxa ku jirnay baraaro waxay dhahdaa maalin maalmaha kamid
ayaa waxaa aaday dhahday safar oo caafimaad u aaday oo banaanka oo dibadda soo aaday aaday wadamadan ee wadanka soo aaday oo caafimaad ahaan u soo baxday. markay caafimaad ahaan u soo baxday guriga waxay ugu soo tagtay marka 2 caruur, labada yarna iidaa wadatay maadaama ay isku awoodin tikidyada gabadhii oo caawin laheeda iyo caruurta iyo hooyadeeda iyadana soo raacisay. marka hooyadeeda waxa ku tiri hooyo maadaama oo wiilkana oo shaqeynayo wiilka 2 caruurna aad ka tagaysid 2 caruurna anaa ku lahaynaye wiilka iyo gabadha guriga ku kaalmeynayso iyo 2 caruur hooyo bal ha joogaan maxaa la dhahay sheek guriga haye waa ilaan gabadhaanaytan waxay ka dhigatay walaasheedoo kale maasha Allah hadii waxay tiri diracda soo gata dirac kale u soo gadaaye hadda oo wax sameysto oo soo gadaaye nacam gabadheedoo kale walaasheega yaroo kale ka dhigtay kama dhigin qof ani ila joogtaanba ii shaqeysa amba oo qadaamad iyo kama dhiganin maadaama qof oo ilmaheyga oo ila korinayso oo ilmaheygana ayada taa iga sii jecel yihiin oo maasha Allah ii xanaaneenayso iiga fikirayso mar walbo. marka waxaa dhacday tiri waa soo baxay caafimaad ahaan oo soo baxay hooyaday iyo 2 yar maadaama midna oo naas nuugay midna 2 sano oo jiray midna oo yaraay sanad oo dhameen ilmaheeda isku nuug waa baayada waa soo baxnay safarkana soo aadnay dhahday muddo bil safarka noogu qaadatay almuhiim alxamdulillah caafimaadkeygii laasim banaanka u ahay daawooyinkii wixii markaa ku najaxay iyo qaliin yar amaray dhahday waan ku najaxay waan noqday markaan noqday dhahday iyo u noqotay ma walaashi ee kasoo tagtay ee u noqotay mise dabiino waxaa la lahaa qofka lagula qabo mee kasoo tagtay mise waxay kasoo tagtay qof kaalmeynayso oo walaasheeda ka yar oo gacyaro eeda kasoo tagtay. marka waxay dhahday markaan noqday oo muddada bilka kadib waa noqday dhahday markaan noqday alxamdulillah gurigeyga ilaahay nabad igu geeyay odageyga maasha Allah farxad igu soo dhaweeyay maasha Allah gurigeyga markaa joogay dhahday xoogaa aad jooga maalmo aad jooga gabadhi markaa heblaaye aad dhihi tire sida wuxuu u boodaysay tire rati camal amba faras camal ay u boodaysay gabadha markaa waxay dhahday way cagjiidee haddaa wax u diro way isdhagoolinay haddaa kan isoo qabo dhaho nacam gafuurkee taage maanta dhanbo ayadiya isku mashquulsanbo walaaley maxaa ku daaray walaaley maxaa kaa qaldan maxaa kaa haleeyay ninkeyga ma wax ku dhahay dad ehelka ma imaadeena wax ku dhahay ani waxa u maleeyay gabadhiba in la ku diray oo qof dad igu makriyana u maleeyay laano gabadhiya maasha Allah ilmihii jecel oo aniga i jecelaha ka tagay. marka waan iga yaraaday dhahday gabadhi iska yaray aheeday oo ehelkeedana kasto iska duruuf oo meelaha sidii goboladii degan waxa gabadhiya waxaa imaaday tiraba oo waxa igu eebo bismillaah xubsayso haddaa dhahay bilaay waxaa sidii ii keen ama saasada cunug ii keen waaba xubsay doono yeel maalin dambe waxaa dhihi tir walaaley 2 mid soo gal waayo qofkan ashal walaalka dhigana walaalnimada ayada ma dareemas waxaa dhihi tir walaaleyna qof lacag siinaya tahay gurigan haddaa nabad ku joogaynin oo waxaa raba ii sameynin ana shalay inaa walaashay iga yaraa aheeday qof kaalmeena aheeday weligay kaama dhiganin qof oo ani ii qadaameen ama ii shaqeynaa ma kaa dhigan sheyga soo gato waa kuu soo gadi jiray waan ku xanaaneynaa odagay sidoo kale inta wuxuu haduu ani shay ii soo gadaan bilmiis soo gado waa lagu soo gadi jiray maxaa kaa qaldan odagay ma wax ku dhahay maya tayb haddaa ii shaqeyneen oo shaqada seenaas aad u rabeen walaaley tawakal Allah iska bax. waxay tiri saaxiibe inta u socdaa guriga ani adibo waan ka simanahay waa ka simanaa markii la dhahday tiraa miir igu dambeyso waan ka simanaa maxaa ka wadaa marka habirtay marka aad joogtay dhahday maalintaas ilaahay markaas martino ayada maxaa ka wadaa waxay dhahday markaas tiri sida ayada loo qabo anigana lee qabaa sida ayada u dhashay anigana uur u leh yaa rasuulullah. المهم markaas seeti waxay tiraan waa meer dabar maxaa kalmad igu dambeysay dhaas guriga waa ka simanaa markay dhahdaa horta waxay tir korontada iga tagtay dhahdaa alcamo meesha waxa ka kacay foodo ninkii imaaday 2 shaqada jiray hay saaxiibo maxaa jira gabadhan saasi dhoosaa koowa soo waale waa inkiro ayadoo ku indhacday marka dib waxay tir maxaa wareerkeen maxaa ku jirna anaga 2019 keeda 2019 maan hawad sanad casri maan aha istaaligeyna uur leh gabar meega tagna istaaligeyna uur leh ilmiisna dhaan la qaanin kaaniti
المهم وطلقي waxaa isku soo baxeen المهم gabadhu marka dambe wuu qirtay waa qabaa waayo adib bila iga maqneeda sheekanimadu iska taqaaneen adib bila iga maqneeday maxaa la inta banaankii waxa aadi lahay gabadhaana guursaday maadaama ilmihiin ay jecel yihiin ee gurigeedna hooyo ay ka tahay saasa walaale u guursada calafaan iigee calafaa la nabaa calafaan iigee haye calaf ma ku geeyaha aniga iida meel misla galna waa madaxayga isii مقفورة المهم وحي جيجيت كدب المهم قبل وحي قولي ستي وحي تري انك تعمى بربي هذا حارانتي نمحر ما يقطع ابي يقطع سيدي وصوب حظي ومدة ذيك الحرق يدو هايستي وطلاقي هذا انت فرنا هذا وحواي مدة ذي شنبلد مراسي تفرنا هذا الى هراسو دم وحا كجرني بوق لي كسو جرني هذا لابد كنت سقالي طبنك الا هذا اديس للتاقين بوق هذا انت فرنا وشنبلد هذا markay sidaas walaasheen Soomaalina la soo wadaagtay inay wiilashana waxaas ka waantoobaan oo ragana ay sameeyaan xaasaskooda ay qiyaamin afra ilaaha u banay naagtay rabaan iyo kooindooda shanta ee aroos karaan intuu gurigooda ku soo noqon la qofkii markaas la joogto ee banaankooda karaasa karaayid wixii tira maanta banaanka aaleed walaa wixii tira naag inkastay maseerta kama walwaleen taas waxa kan xitire oo hatta inaa dhinta amba inaa oo waashto amba inaa oo wax walba oo hatta waxaa noqday dhahday shilan haduu qofka taa kooma galo dhibaato mugti markaas qof guriga joogto hadana walaashii camal ah ka dhigtay oo hadana guriga ugu soo laabtay banaanka haleed tawciid wallahi ma ka walwaleena dhahday waa in hada oo faqiirnimo u soo sawirto xoolo helo walba iska kibray Soomaa naag kali afro sheegay nimanka isku mid maaha midna naagtan gaajada u soo samirtay oo soo dul qaadatay oo maanta ma sha Allah oo ka dhigaa boqortooyo nin waxa laba kum hado helo tukal xaliima kale raadiya marka waxay tiri kama walwaleena tiri banaanka duuga aad la raas gurigeyga ka naxidhada dabcan waana ka naxay gurigaaga qof ku joogto masa ku noqoto waad ka naxay المهم abahay saas ay ugu dhacday marka wiilashan inay taas ka waantoowaan ninkaas oo damiir xumada qaadane iyo gabadhaas seetan gabadha hata waxay tiri boqolkiiba oo ka weyn yahay inkastay gabdhaha aqliga aad aqli badan ee aheeda dhacsan hadana uu ka weyn yahay ani gabadha ma eedanay tiray inkastoo gabadha maxaa la isag iyo nafteeda qaladka ay ka sharaagsan ninka eedanay dhahday niman kale oo saas amal ku dhaqmaan inay ka waantoobaan afra ilaahu banay inay guursadaan aan waxa gurigaaga hadii dalaaqadan wax ku dambeys ilmaaga aabood way inta nin kale akeen leed aroos leed aabood iskaaga samir aabood iskaaga noqo waxay tir uma noqonaa mid kale uma socdi ragga Soomaaliyeed inay ka waantoobaan anigana qisadeeda idin la wadaagay dhahday marka walaasheena qisadaas nala soo wadaagtay waxaan leenahay waa mahadsantahay ilaahayna qalbigaaga ku dejiyo idinkana u soo duceeya ra'yigiinana commentiga ugu reeba insha Allah ra'yigana waa xaqiina biidnillah